waxay halis u yihiin oo intooda badan xataa ku dhacda heart attacks in ay wadnuhu istaago in blood pressure-kooda kor u kaco, dhiig kar ku dhufto, in stroke ku dhufto ama falig oo maskaxda dhiig magaranaysa fadhiisto amaba uu dhiig ku qarxo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة الصومالي هيلث لايف ستايل 1 channel كعافماتك يوحي قصية كلا حديدان ودكتور عبد الله وعيسو دين سو تشيدنيا دادك بودي بولدرز كا يو نلوشو دا قرصون كل سن مجدية يو دلانتهد كا دادك بودي بولدرز كا قاتو وليبا استيرويدز كا يو مقران ساي تستوستيرون انجكشنز كا oo si ay magaranaysa muruqyadooda ugu muuqdaan muruqyo aad u waaweyn jirkooduna uu noqdo jir giant ah oo dadku magaranaysa isha saawl raacayaan waxay u muuqdaan inay caafimaad qabaan oo aad u healthy yihiin laakiin runta marka laga hadlo wax fara badan oo mugdiya noloshooda ku jirta. Depressed way dadkaasi aggressive bay noqdaan oo maxay magaranaysa dabeecadooda way xumaataa waxaana u sababa steroidska iyo testosterone-ka maxay ay magaranaysa external u qaadanayaan. waxay halis u yihiin oo intooda badan xataa ku dhacda heart attacks in ay wadnuhu istaago in blood pressure-kooda kor u kaco, dhiig kar ku dhufto, in stroke ku dhufto ama falig oo maskaxda dhiig magaranaysa fadhiisto amaba uu dhiig ku qarxo, in ay galaan wax maxay yani temporary infertility in waqtiga ay steroidska aad soo dhacayaan ee active yahay jirkoodu in aanay dhalayn, depression inay galaan oo markasta maxay dad aad u depressed yihiin hurdadoodu ay magaranaysa ay noqoto hurdo aan si fiican oo maxay u joogtahayno habeenkeedu doona uu soo jeediyay badan ba. Muscle atrophy muscle-ka ama masalan muruq aadka u dhisayo waxa uu halis u yahay inuu noqdo muscle ama masalan muruq xorshash oo xagga hoose ka buka ilma yar oo 5 jir xataa qofka inta la iska celin karo ma dhow because muscle-kiisu xoogiisa ma aha yani fibrous-kii ama masalan muruq wixii uu ka samaysnaa waxa ku dhacday in laga dhaxgalay oo nidaamkii ama normalkii magaranaysa jirku cuntada maxay intuu ka qaato wixii proteins iyo wixii oo magaranaysa ka faa'iido ka qaadan lahaa in aad adigu tiraahdo dibaddan ka soo siinaya ee jiro waxba ha sameeynin. Marka nidaamkii uu muscle-ku ama muruqu u sameysmay adaa ka dhaxgalay waxa dhacaysa marka inuu muscle ama muruq xorshasha noqdo oo aan yani wax badan qabanin inuu qofkaas magaranaysa bodybuilder-ka ahi uu markas dareemo in uu ku jiro xaalad fatigue ah ama مثلا دال markasta mararka qaar kood xarka iyagoo jooga stage-ka oo magaranaysa midkood xidid saaw qabtay oo agtu saam magaranaysa u rortay oo halkii magaranaysa stage-ki laga qaaday ba intuu magaranaysa maxay xanuun aad u daran dareemay. waxay badankoodu dhintaan kidney failure, liver failure, testicular tumors and heart attacks, blood clots oo fara badan oo jirkooda ku baaha dadyogaasi waxay u muuqdaan dad healthy ah laakiin runtii ma aha healthy way bilaabeen qaarkoodna way niyadii ku hayaan. hadaba inkastoo ay badnayn dhalinteena qaadata steroidska hadaba hadii ay jiraan qaar steroids qaata ama testosterone qaata oo jirkoodu oo magaranaysa oo halk noqday ama oo giant noqday waxa la gudboon runtii inay ogaadaan dariiqa madow ay ku sii socdaan waxa uu yahay iyo godka ay ku dhici doonaan caafimaadkooda halakayn doona. la wadaag cidii aad uga shaksan tahay inay steroids qaadato ama testosterone supplement ay qaadato oo uga dig magaranaysa danger-ka ama maxay dhibaatada caafimaad ee ku soo fool leh. waa Dr. Abdullahi Wacayso idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.